daawadayaashana qiimaha badan oo ku soo dhawaada CAC channel. maanta iyo barnaamij cusub maxaad ka taqaanaa xirfadlihii soo saaray nalka iyo madbacadda. barnaamijkeena ku dhageyso fadlan haddii aad inagu cusub tahay nagu soo biir. waa kuma ninkii sameeyey laambadda? asaga waa Thomas Edison, wiilkii maamulihiisa dugsiga ay ku sheegeen wiil duqoon ah oo aan caaqil ahayn, ugu dambeynna noqday ninkii ikhtiraacay aaladda loo yaqaano phonograph, kaasi oo lagu sameeyo duubista codka, iyadoo ikhtiraacisa ugu weynaan oo ahaa ilaa iyo hadda lagu xasuusto laambadda electronic component. Thomas Alva Edison waa nin u dhashay dalka Mareykanka, waxaase asal ahaantiisa uu ku soo jeedaa waddanka Holland. waxa uuna u dhashay tuulo lagu magacaabo Milan oo ka tirsan gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka bishii February ay 11 sanadkii 1847. waxa uuna ku dhintay degmada West Orange ee gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka bishii October 18 sanadkii 1931. Master Thomas yaraantiisa waxba kama uusan baran dugsiyada ay dowladdu maamusho 3 bilood mooye, wuxuuna maamulkii dugsiga ku tilmaamay wiilkii Master Thomas Alva Edison inuu yahay wiil caqligiisu wax ka dhiman yahay ahna wiil doqon ah. markii dugsiga dowladda laga eriyay waxaa si fiican u xanaaneeyay hooyadii, waxaana markaa kadib Master Thomas uu muujiyay firfircooni iyo maskax badni, halkaasi uu caalamka ku soo kordhiyay waxyaabo badan oo maanta faa'iidooyin badan ugu fadhiya dunida. waxyaabaha uu soo kordhiyay Master Thomas waxaa ka mid ah laambadda, nalka ama leerka, iyo microphone-ka iyo madbacadda maanta wax lagu daabaco. ninkani oo la yiraahdo Thomas Alva Edison noloshiisa wuxuu ka bilaabay shaqada ah iibinta wargeysyada uu ku iibin jiray barta laga raaco tareenada, oo ugu dambeynna soo jiidatay hami ah in uu wax daabaco. wuxuuna sanadkii 1862 bilaabay in uu soo saaro wargeys uu ugu magac daray Grand Trunk. Thomas Alva Edison wax kasta uu sameeyay Ilaahay ka sukow waxaa mudnaanta koowaad lahayd hooyadii oo ahayd macallin bara dadka suugaanta iyo gabayga iyo sida wax loo akhriyo. intii uu Thomas ku jiray halgankii nolosha waxaa kale uu ka shaqeeyay goob taleefoonada lagu diro, taas oo ku taalo goobta laga raaco tareenada, waxayna u sahashay arrintaasi in uu sameeyo aaladda la yiraahdo telegraph. guulo weyn ayuuna ka gaadhay shaqadiisa, wuxuuna dib ugu guuray magaalada Boston sanadkii 1876, wuxuuna aasaasay xarun cilmi baaris ah, wuxuuna ku ikhtiraacay aaladda loo yaqaano phonograph, taas oo samaysa duubista codka, isagoo 2 sano kadibna ku guuleystay ikhtiraacisa ugu weynaa ee ilaa iyo hadda lagu xasuusto, taasi oo ah nalka laambadda ama lamp electronic component. Thomas Alva Edison wuxuu dunida ku soo kordhiyay qalabyo si weyn ilaa iyo hadda loogu isticmaalo. ugu dambeynna wuxuu ku dhintay degmada West Orange ee gobolka New Jersey ee ku yaala dalka Mareykanka bishii October 18 sanadkii 1931.